تنا صورك صورك وجده هدايا بس تروح وين الوزة الله أكبر muuqaalkan waa uu ka duwan yahay kii indhahaadu ay barteen saacadii la soo dhaafay gudaha Israa'iil iyo Iiraan wixii ka dhacay kan wuxuu ka imaanaa gudaha Soomaaliya hadda waa muuqaal diyaaradaha iyagu markaa duqeynayo ragii khawaarijta ahaa gudadka ay qoteen laakiin haddii abdi jiray aan ka siiyo gudaha Israa'iil waxa ku soconaya gantaalo kuwii ugu badnaa oo ka duwan kuwii habeenadan oo dhan Iiraan ay ku dagaalamaysay waxaana ballanqaadkeedii hore ee ka dhaweysay caawa wax ka bedel ay ku sameysay hubka ay ku weerarayso Israa'iil waxayna ku weeraraysaa caawa kii casriga ahaa ee ka duwnaa habeenadan oo dhan ay ku weeraraysay waxa ku geyn doonaa shabeellada hoose wixii ka dambeeyay salaada duhur ilaa caawa 4 jeer oo isku xigto ayaa lagu weeraray kooxaha al-shabaab gudadkii ay ku qoteen sabiib iyo caano leh iyagu waxay sameeyeen inay jaraan buundooyinka si markaa xuduudda aan loogu talaabsanin laakiin meedadkooda ay la bixi laayihiin gudadka ayay qaarkood iyagoo dhaawacna dhiig bax ugu dhinteen qaarkoodna meedkoodii way ka carareen ciidamada dawladda markaa marwa fertility center waa xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmo la'aanta rag iyo dumar lagu dooro daaweyn qaliin bacrimin IVF fiirsanaya ee muuqaalkan sharaxaya aad u jeedaan waa guutada 25aad ururka 252 oo laakiin kaashanayo ciidamada nabad ilaalinta dalka u joogo ee AMISOM maxaa ka soconaya marka shabeellada hoose waa wararkii ugu dambeeyay inaan caawa arkeeno diyaarado duqeyn u geysanaysa kooxaha al-shabaab waliba ku soconaya wax yar kuwii hore sida aan loo arki karin caawa loo arkay iyagu waa muuqaal kale oo muujinayo dagaalka lagula jira al-shabaab wax ka bedel badan inay sameysay nidaamka dawladnimada dagaalkana markan diyaaraduhu inay wax yar soo degan karaan iyaguna la dagaalami karaan khawaarijta meedadkooda ayaa gudadka ku dhex qurmaya qaarkoodna dhaawac iyagoo ay halka nafta ugu baxday dawladdu waxay la dagaalamaysaa al-shabaab shabeellada hoose ayayna u jeesatay sabiib iyo caano leh oo ciidamada dawladda waa hore laga saartay xerooyinkooda oo si xun hubkoodii loogu qaato weerar ba'an ciidamada dawladda lagu baabi'iyay markan soo laabasho wanaagsan ayay sameynaysaa dawladdu waxaan arkaynaa caawa diyaaradaha dagaalka oo duqeynaya al-shabaab halkii maalmahan indhaheenu ay aad u qabanayeen Israa'iiliintu waxa ku dhacay si la midaba weerarada Iiraan iyo Israa'iil u dhaxeeyo labada dhinacba qasaarooyin badan uu jiro al-shabaab hadii sidan loo sii weeraro waxay noqon doonaa howlgaladan kuwa lagu guuleysto waa hadii uu sii socdo oo ay dawladdu ka dhabeeyso la dagaalanka al-shabaab waxaan ku tusay diyaarada ka duwan kuwa Iiraan iyo Israa'iil qaybtoos ee commentiga gula wadaag aragtidaada